tukuhii duulaanka ku qaaday calanka Israa'iil cashirka laga baran karo duulaanka uu tukuhu ku qaaday muslimiinta caalamku waxa ay garan waayeen oo gartay tukuhu iyo sidoo kale xog la yaab leh oo ay ka diyaarisay warbaahinta caalamka islaamku tukuhii weeraray calanka Israa'iil ayaan ku qaadaa dhigi doonaa xogteena haddaba daawada muuqaalkan like saar siina share gareey kuma hasanid xayntu ka ah ayaa weerar ku qaaday calanka dalka Israa'iil ka babanayay meel kamida wadankaasi waxaana warbaahinta dalkaasi Israa'iil ay qaadaa dhigayeen xogta tukahan iyaga oo baaris ku sameynaya halka warbaahinta caalamul islaam iyaguna dhanka kale u fasirayeen waxa soo baxay xogo iyo fasiraado ka dhalanaya in tukuhu uu xilligan weerar ku qaada dalkaasi Israa'iil gaar ahaan calanka dalkaasi isaga oo qayb dhan la fuqay calanka dalkan Israa'iil oo ka babanayay meel gaar ah muuqaalka laga duubay tukaha ayaa waxa muujinaysa xayntu ka ah oo dagaal adag ku soo qaaday calanka iyaga oo markii dambana qayb la fuqay intaasi kaliya kuma ekaane waxa la duubay muuqaalo kale iyo sidoo kale cadaymo muujinaya tukayaal kale oo iyaguna weerar ku qaaday calanka Israa'iil oo dul saaran hotel iyaga oo fuqsaday sidoo kale la duulay arrintan ayaa soo badanaysa waxaana muddooyinkii dambe lagu arkayaa guud ahaan dalka Israa'iil iyo sidoo kale goobaha kale iyo wadamada kale ee uu ka babanayo calanka dalkaasi Israa'iil waxa la joogaa xilligii la fujin lahaa ama duulaan lagu qaadi lahaa dalkaasi Yuhuuda ama Israa'iil tukuhu waxa uu ka mid yahay shimbiraha lagu tilmaamo inay yihiin kuwa ugu caqliga badan lagana baran karo waxyaabo badan oo aqoon-yahanadu u kurgalay ku sheegeen kuwa ku saabsan dhinaca horumarka waxa la sheegay in aaska iyo sida cadba waxa laga bartay aaska in bini aadamka la aas marka ay geeriyoodaan tukaha sida ku qoran mawaadiicda iyo sidoo kale culumta diiniga islaamka tukaha ayaa waxa la sheegay in laga baran karo xaaladaha aad ku qasban tahay in markaasi aad la qabsatid sidoo kalena markaasi aad ka gudubtid waana cawaaqibka iyo sidoo kale dhibaatada haysata dalweynaha Falastiin oo markaasi ay ku soo duushay Yuhuudu dhulkooduna haystaan haddaba casharkan ayaa muhiim ah oo laga qaadan karaa qodobkan wuxuu ku saabsan yahay in tukuhu uu leeyahay dabeecad uu ku wajaho caqabadaha lama huraanka ah uuna uga gudbo nidaam qorshaysan James Deere wuxuu khabiir ku yahay xirfadaha lagu badbaadiyo nafta wuxuuna isagoo arrintan sharaxay yiri waxa jirta xigmad military oo dhahaysa caqabadaha marka hore fahan kadib la qabso ugu dambeeyna ka gudub taasi runtii waa dhanka wanaagsan ee laga eegi karo wax walba shimbirka tukuhu wuxuu si caqliyeysan uga gudbaa caqabadaha soo wajaha taasoo dadkuna ay ka faa'iidi karaan inay dhibaatadan la qabsadaan oo ay la tacaalaan halka ay ka niyad jabi lahaayeen walaalaha Falastiin ee lagu soo duulay dhulkooda cashir ma ka qaadan karaan tukaha fujinaya xilligan xasaasiga ah calanka dalka cadaawada islaamku kala dhaxayso ee Yuhuuda